የተከበሩ የፓርላማ አባላት፣ የተከበራችሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም ክልል ፕሬዝዳንቶች፣ የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን ለኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በዓል በሰላም አደረሳችሁ። runtii waxaan oo wanaagsan ciyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareyso waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sahlo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana awlaadda uu barakeeyay inta awlaadoonka aan ilaahay awlaad baari ah hasiyo inta guurdoonka aan guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa dambigood iyo dambiga waalidkood baa inuu dhaafo rabbi subxaanahu wa ta'aala aan uu ku casuumo jannatul الفردوس الأعلى وحان حاسد كلنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحان ربي سبحانه وتعالى عن كبر إن حاسدين تا إن هو يبقى وكل ذا لما أنت بموقعك تيشر قرية لنا وداقة صاحب دين وحان كان لدونا تاريخ ذا شخص يجوه ريو إثيوبيانا وحلك يجوه ريو كقبطي الصومالية كاس ونقضي قسمها رجل وزارها الصومالية مهدي محمد جولاد يولبت كومنتيو يقرأ على السرعة وأرنت أسيكو سابسان مهدي محمد جولاد وحان مجا عيسى الله in la yiraahdo baadhita dhase waxaana uu ku dhashay meel 40 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga jirta magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya baadhita dhase Mahdi Maxamed Guuleed Qadar wuxuu soo qabtay xilal kala duwan kaas uu ka soo qabtay dalka Itoobiya waxaana uu kamid ahaa shakhsiyaadka sida weyn uu soo barbaariyay ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Malla Zanaawi waxaana la sheegay Malla Zanaawi oo si weyn howshiisa ugu bagay inuu dhiibay xilal muhiim ah oo ay ku jirta in Soomaaliya gudaheeda uu ka shaqeeyo aakhirkiina hadda inay u suurtooday Mahdi Maxamed Guuleed baadhita dhase inuu noqdo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya baadhita dhase dukumeentiyada iyo waliba qoraalada aan helay waxay muujinayaan in xilli uu noqday taliyaha nabad sugidda ee dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada caasimadda u ah Itoobiya Addis Ababa waxaana la sheegay in muddo xilkaasi uu hayay xilligii ra'iisul wasaaraha uu ahaa Malla Zanaawi baadhita dhase oo ah shakhsi aad u firfircoon Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxaa la sheegay kadib in Malla Zanaawi uu soo wareejiyay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee haysato waxaana sidoo kale Mahdi محمد جولاد si weyn u Malla Zanaawi kala tashan jiray shakhsiga madaxweyne laga dhigayo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaana dhammaan xubnihii madaxweynayaasha ka soo noqday deegaanka Soomaalida ee Itoobiya la sheegay inay ahaayeen shakhsiyaad uu maamuli jiray baadhita dhase Mahdi Maxamed Guuleed waxaana aakhirkii loo soo diray deegaanada Somaliland halkaas uu ka noqday gabraha Somaliland fadhiya baadhita dhase Mahdi Maxamed Guuleed Qadar wuxuu deegaanada Somaliland la sheegay inuu kamid ahaa shakhsiyaadka ugu awoodda badan ka hor intuusan soo naqanin gudoomiyaha maxkamadda sare ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaana la sheegay in Malla Zanaawi uu wakiil kaga dhigay deegaanada Somaliland baadhita dhase Soomaaliyana uu u soo diray shakhsigii lagu magacaabi jiray General Gabre baadhita dhase oo ah shakhsi aad u firfircoon Mahdi Maxamed Guuleed hooyadiisana la sheegay inay ka soo jeedo qabiilka Oromada ee hadda xukunka Itoobiya haya saaxiib dhowna yihiin Abiy Ahmed ayaa aakhirkii hadda waxa uu suurtooday inuu noqdo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhowr sano uu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya baadhita dhase waxaa la sheegay in calaaqaad iyo xiriir aad u wanaagsan inay leeyihiin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo la sheegay inuu kamid yahay shakhsiyaadka sida weyn Abiy uu aaminsan yahay baadhita dhase waxaa dugsigiisa hoose dhexe sare iyo waliba jaamacirkiisa jaamacadeed uu ku soo qaatay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaana uu kamid yahay shakhsiyaadka lafdhabarka u ah dawladda Itoobiya ee waqtigan waxaase sidoo kale u suurtooday inuu noqdo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale baadhita dhase Mahdi Maxamed Guuleed waa gudoomiyaha xisbiga nabad iyo nool halka musharaxa xisbigaasina uu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la sheegay in baadhita dhase uu kamid yahay shakhsiyaadka sida weyn warka uu kaga maqlo shakhsiga lagu tilmaamay in dawladda Soomaaliya uu ugu awood badan yahay ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir مستر بادي تدسي مهدي محمد جولاد قدر وحالا شاقي إنو ياي شخصي آد وقف معان إسلا مركانا أف صومالي آد وقوحل لكرا مركا لغا سو تغير لقدا وقولا شاي إتوبيا وحانا دور مر لها ياكل بيوكو آدن أسوه كقيب قلي يا حفلة دو أوين أو كدعي مقالة عدي سابا يكوا كدعي ديغان كصومالي دي إتوبيا ديك وحانا ونقضي شخصي إلكا وقصر ياكا قبتا صومالي إتوبيا أسل كيسا كاسو حدا كسمها رجل وزارها صوماليا قرنا وحان إديسو قد من دوننا تاريخ دا بادي تدسي مهدي محمد جولاد كحدا
kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taas oo muujinaysa dukumiintiyo ka duwan kuwa hadda aan soo bandhignay waxa dukumiintiyadan ku cad baasaboorka Baari Tadhase xafladihii uu ka qayb galay iyo waliba qoraale kale oo Baari Tadhase uu sameeyay xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda Itoobiya gaar ahaan tan magaalada Addis Ababa waxaana intaasi sii dheer in xilli uu noqday kusimaha taliyaha sirdoonka ee Itoobiya guud ahaan waana shakhsi si weyn holo waaweyn u soo qabtay dawladda Itoobiya waxaana Baari Tadhase la sheegay in sidoo kale uu ka dambeeyay shirqoole iyo dilal ka dhacay gudaha Soomaaliya asiga iyo General Gabra oo wakiil labadooda wakiil u ahaa Soomaaliya ama wakiil kaga ahaa Soomaaliya dawladda Itoobiya laakiin wakiilnimadiisa hadda waxay isku rogtay inuu ka mid noqdo madaxda dawladda Soomaaliya waana nasiib darrada ugu weyn oo haysata dadka Soomaaliyeed in shakhsi Itoobiyaan ah maanta inuu yahay kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalayna uu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Soomaaliya Itoobiya ayaa waxaa ka dhaxeeya dagaal soo jireen ah iyo waliba colaad aad u gaamurtay laakiin hadda waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay hilmaameen colaadii soo jireenka ahayd ee nagala dhaxaysay Itoobiya دمانتين بإلهي أيضا حفظي إلهي أمورها الذين هسألوا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلة إلهي ودمانتين بوحنك ويديسان ناقر قار كلمة هذه نحريست هذا يا ربي إله فرج خير وأوفر أمد الصوماليين وميلو ربو الصومالية جوكت إله ونحريسه إلهي ودمانتين بوحنك ويديسان نحريست هذا الدنيا يمد آخر الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى إله ودمانتين با قرقار كاغا نحريست هذا دمانتين بإله وينسيه إله ودمانتين با فرج خير قبل إله وينوفر إله دنبيين دنبي والد كان برداف دمانتين با ربي سبحانه وتعالى وحن كبر يناينو نقول كل مية جنة الفردوس الأعلى إلهي وأنت حنوسن حنونك كدر القاد وعافمات وقبدر إله وأنت أولاد الله أنت عيسرنا إله أولاد باري هسي إلهي وأنت قردون كأنا قر وأنا أحسن مستقبل وأنا أحسن يا ربي إله سي لما أنت بإله وينون حريصه وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله لما أنت بوحن كويدي سنة ناقر قار كاقين حريص هذا إياك نعبد وإياك نستعين يا رب إله لما أنت فرج خير قبل إله ونفر وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم